Assalaamu calaykum kusoo dhawaada kanaalka tarjumaad. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso ah sidaa dadka u dhibaatayso ayaana adigana lagu dhibaataynayaa. Ha dulminin dadka, iskana ilaali qofka la dulmiyey baryadiisa iyo habaarkiisa. Ka hor intaynan qisadan bilaabin, ka mid noqo asxaabta ku xiran kanaalkan. Wiil baadiyaha deganaa oo aad u qalbi wanaagsan ayaa wuxuu guursaday gabar aad u dabeecad fiican. Muddo yar kadib guurkooda, asaga iyo naagtiisa waxay yimaadeen magaalada, laakiin nasiib xumo wuxuu daris la noqday nin caan ku ah dulmiga iyo gardarada, laguna yaqaano daris xumada. Waxaa intaasi ka sii yaab badan, carruurtiisana waa la mid, waa dameer iyo dhagihiisa. Dad badan ayay garaaceen, ayna caayeen xoolaha dadkana xoog ayay ku qaataan. Maalin asagoo wiilkii shaqo ku maqan ayaa waxaa murmay naagtiisa miskiinta ahayd iyo mid ka mid a gabdhihii uu dhalay ninkii daalimka ahaa. Reerkii xumaay oo dhanna waxay isugu tageen ay ku goobteen gabadhii miskiinta ahayd, waa ay garaaceen, dharkiina waa ay ka jeexjeexeen. Markii dambe nin wadaad ah oo ka mid ahaa dadkii dariska ayaa ka celiyey, wuxuuna ku asturay gabadhii oo ku daday go' sariireed. Kadib daalimkii ayuu wuxuu ku yidhi, gabadhan miskiinta ah haddii aad ka leexan weydaan, Ilaahay ayaa u aargudi doono, ciqaabtiinana waad maraysaan. Laakiin daalimkii waanadii waa uu diiday. Gabadhii miskiinta ahayd waxay bilowday in ay iska oydo. Ninkeeda markii uu yimidna oo uu soo galay dhismaha dabaqa, daalimkii ayaa wuxuu ku soo dhoweeyey caay iyo hanjabaad. Naagtiisa markii uu u tagayna ooyin daran ayay oysay, wax walba ku dhacayna waa ay u sheegtay, waxna wuu ka qaban waayay arrintan maadaama xoog loo sheeganayo. Waxayna bilaabeen labadooda inay iska ooyaan habeenkii oo dhan, ayna habaaraan daalimkaas. Waxayna yidhaahdeen, xaafadan oo dadka hortoodana lagu sharaf xumeeyey ma sii deganaan karno. Waxayna go'aansadeen in ay ka tagaan, ayna ku laabtaan tuuladoodii. Markii ay xaafadda ka tageen, dab ayaa ka kacay gurigii uu deganaa ninkii daalimka ahaa. Dabkiina wuxuu qabsaday dharkii ay wateen gabdhihiisa daalimaadka ahaa, kuwaasoo garaaceen gabadhii miskiinta ahayd. Ayagoo ka baqaya dabka in uu gaaro jirkooda ayay dharka iskaga siibeen oo ayna isku qaawiyeen isla goobtii ay ku qaawiyeen gabadhii miskiinta ahayd. Wadaadkii ka mid ahaa dariska ayaa bilaabay haddana in uu waaniyo, wuxuuna ku waaniyey xadiidkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ahaa, dadkan carabkooda ka rumeeyeyow oo iimaanka uusan gelin qalbigooda, ha xamanina muslimiinta oo cawraadkooda ha raacraacina. Qofkii raacraaca cawraadkooda, asagana Ilaah ayaa raacraaca cawraadkiisa. Qofkii alle uu raacraaco cawraadkiisana, gurigiisa ayuu ku dhex fadeexeeyaa.